gacan ku dhiigluhu isaga ayaa baadidoonka ku jiray aabaheed iyo walaaladeed buu la baadidoon ahaa mana aad ka dareemayn qof dee wax geystay ba lagama dareemayn taliyaha qaybta booliska gobolka Saraar Jaamac Ibrahim Aadan Gudcadi oo maanta la hadlayay telefishinka Sab TV ayaa waxaanu wax ka weydiinay kiis u dhacay si fool xun isla markaasina ka dhacay waqooyiga degmada Og ee gobolka Saraar kaasoo ahaa nin gacantiisa ku dilay xaaskiisa isla markaasina u dilay si arxan darra isagoona bareeyay kadibna u kala jiray laba isagoona ka kala dhigay laba qaybood qaar hore iyo qaar dambe Allahu naxariistay barwaaqo علي سليمان وهاي مرحومة ودلي سيجدا مدشن عشاء لبادي جوبيي قيب كمدة شركة isagoo saygeedu gowracay isla markaasina qaybna ku riday badweyn oo ku taal waqooyiga degmada Og ee gobolkaasi Saraar qaybtii dambana waxa uu ku riday deegaanka Barqaawi oo ka tirsan gobolka Saraar gaar ahaan degmada Garadeg ee gobolkaasi taliyaha qaybta booliska waana wax ka weydiinay kiiskaasi iyo sidoo kale halkuu marayo baaristiisa ayaa waxa uu yiri maanta ay taariikhdu tahay 10kii bishii 12aad 2024 waxaanu halkan qaban doonaa insha Allah warbixin kooban oo ku saabsan dil fool xun oo ka dhacay gobolkan Saraar jiida degmada Og dilkaasi wuxuu dhacay 4tii bisha 2024 ciidanka biliiska waxa lagu wargeliyay oo dilkaas uu ka war helay 7 bisha 12aad buu ka war helay ciidanku isagoo loo soo sheegay in laga helay mayd magaalada badweyn halkaas ay ku taalo badweyn oo biyo weyn oo iska fadhiya oo Ilaahay maaragtay meesha ka soo saaray meydkaas oo badda ka soo caariyay waxa arinta runtii markiiba degdeg si degdeg ah nooga howlgalay waxaan ugu tagnay goobta meydka oo muddo la raadinayay 3 casha ehelkii meydka marxuumad halka ku jirtay ehelkii iyo dad badan oo markaa maaragtay taagan badda dusheeda ciidanka biliisku markaaba wuxuu bilaabay waajibkiisa shaqo ayuu bilaabay wixii hawlaha waajibaad uu ka gudanay uu ka gutay badda ayaa lagu riday muddada 4tii bisha isla habeenkii 4ta bisha ayaa lagu riday waxaana markaa ka soo caariday 7dii bisha ay ka soo baxday oo biyo soo tuureen meydkaasi wuxuu ahaa haaf buu ahaa qaarka sare oo kaliya ayuu ahaa runtii halka markiiba waxaanu galay baaritaan xaas bay ahayd nin qabo 2 caruur oo leh ninkaasi reerka muddo ka maqnaa xogaha markii aanu helay waxaanu markiiba aanu gacanta ku dhignay eedaysanihii xaaska ninkii qabay oo magaciisa lagu magacaabo eedaysane Shucayb Cali Xasan oo markaas 30 jir ah ayaanu gacanta ku qabanay kadib waxaanu u dhaqaaqnay jiidii dilku ka dhacay oo xawaalaynu jirta meesha ilaa dhowr iyo 10 kilomitir ayaanu u dhaqaaqnay waxaanu sii wadnay baaritaankii bal qaybtii kale ee marxuumka iyo marxuumadda oo magaceeda la oran jiray barwaaqo Cali Saleebaan 20 jir bay ahayd 2 caruur ayay haysatay wiil iyo gabadh waxaanu markaas sii wadnay baaritaankii si aanu helo bal qaybtii kale ee marxuumadda oo qaarka dambe arintaasi waqtiga iyada waanu ku soo hongownay maanaan helin qaybtii labaad raacdo dambe oo aanu u noqonay 8dii bisha waxaanu ku soo helay maryaheedii oo dhameystiran marka laga reebo diric googaradii surwaalkii garbasaartii masaradii kabihii waxa soo dhan oo iyaguna yaala tuulo la yiraahdo Barqaawi agteeda yaala oo goobta dilku ka dhacay u jirta xawaalayn ilaa adigu 2 kilomitir u jirta ayaanu ugu tagnay maryaha dhacdadii saddexaad
iyo baayidoonkii saddexaad waxaanu ku soo helay qaybtii labaad ee marxuumadda oo iyadana lagu riday barkad dadan oo biyeysan oo ku taala tuulada la yiraahdo Barqaawi oo meesha goobta dil ka dhacay u jirtay ilaa 2 kilomitir distance-ka labada marxuumadda hilbaheeda lagu kala riday ilaa 15 kilomitir bay isu jiraan waxayna ku kala yaaleen gobolada Saraar iyo Sanaag bay ka kala tirsan yihiin gobolada Saraar iyo Sanaag ay ka kala tirsan yihiin degmooyinka Caynaba iyo Garadag arintaasi runtii waxay ahayd dhacdo fool xun oo si waxashnimo loo sameeyay arintaasi waxa weeye sidii loogu talagalay ayaa biliisku waajibkiisa u gutay hawshana runtii waxaan halka uga mahadcelinayaa kulay dadkii aad iyo aad noola shaqeeyay maaragtay ama ehelkii marxuumadda iyo dadweynihii ku dhaqnaa jiidahaas oo si wanaagsan baaritaankii iyo baadgoobkii noola qaybtay ilaahay maadii waxaa si buuxda loo wada helay marxuumadda hilbaheedii marka laga reebo calooshii laga reebo iyada aan wali meel ku tuuray aan lahayn kiiska waxa loo u xiran ninkii qabay gabadha oo leeyahay Shucayb Cali Xasan ayaa u xiran isaga ayaa runtii kulay biliisku hadda u hayaa baaristiina way socotaa waxaan ku rajo weynahay in ay si dhaqso ah u soo gabagabowdo isagiina xabsiga noo gudbinay waxaan aad iyo aad ugu mahadcelinayaa ciidanka biliiska iyo oo si weyn muddo 3 casho xiriira arinta Ilaahay ku soo fududeeyay oo hawlgal buuxa galay Cabdiraxmaan Bashaale wararka telefishinka SAB gobolka Saraar